xildhibaan Axmed Iftiin Maxamuud Buuxey, xildhibaan Naasir Cabdi Muumin Buuxey. baarlamaanka cusub ee Jubbaland ayaa maanta u fariisatay gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland iyo labadiisa ku xigeen iyadoo munaasabada doorashada ay ka dhacday hoolka Daawad ee magaalada Kismaayo ayaa waxa goobjoog ka ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya odayaashii soo xulay xildhibaanada cusub ee Jubbaland wasiirada hore ee maamulka iyo marti sharaf kale ee lagu casuumay munaasabada Sheekh Cabdi Maxamed Abdiraxmaan ayaa mar kale dib loogu doortay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland isagoo helay codad dhan 55 cod halka musharaxii kale ee la tartamayay Xuseen Shiino Cali uu helay 18 cod gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa isna loo doortay Aadan Khaliif Xaaji oo kaligiisa tartamayay waxaana xildhibaanada ay ugu codeeyeen qaab gacantaag ah maadaama aanan jirin xil la tartantay gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa loo doortay Cabdi Baali Xuseen munaasabada doorashada kadib waxaa goobta ka hadlay xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoona sheegay in ay ku qanaceen habka ay u dhacday doorashada gudoonka baarlamaanka Jubbaland. annaguna waxaan isleeyahay guushan halkan ka dhacday ciddii jeclay hiil bay u tahay oo kasta waxaa saaxiibadayda hadalkii ugu horreeyay oo qaaday oo wada tilmaamay sidii ay isugu tanaasileen ee ay u jeclaysteen hoggaankoodii hore inay ugu tanaasilaan taasina waa mid dadka Jubbaland ka soo qooday fariimaha kale ee meelo kale ka yimaada waxa laga yaabaa in si kale u dhigi lahaayeen taladii idinka ka qooda tan dambe iyo tan dhacdayna idinka ka qooda haddaydan sidaa isugu doonaan meel kale ma laga soo gelay sidaa la socotaan dowladda saddex loo qaybsata oo executive judiciary and legislative anaga legislative kaanahay dadka waxa proof gareeya dadka waxa ansixiya dadka istaanka ku dhuftoonaya maanta dadka halka waxaan ka cadeynaynaa inay ka dhacday doorasho xor ah xalaal ah shalay markaan hadlayay waan xamaasadooda xoogaa xamaasadda wax kale mee waxaa la yaabaa the goodwill of the people dadkaas siday ku rabaan nabad iyo maamul iyo wax hogaamin kale siday ku uuman yihiin ayaa runtii shalay aad looga xamaasooday xildhibaan Xuseen Shiino Cali oo ah musharaxii la tartamayay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa ka hadlay munaasabada isagoo sheegay in doorashada ay u dhacday qaab xor iyo xalaal ah Jubbaland doorasho xor iyo xalaal ah ma dhici karto waxaan u cadeynayaa anoo ah tartamihii gudoomiyaha baarlamaanka ahna xildhibaan Jubbaland in doorasho xor iyo xalaal ah ay ku dhacday oo ku qanacsanahay insha Allah taala kuwa soo socdana waxaan rajaynayaa inay saas dhabaadaan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee Jubbaland Cabdi Maxamed Abdiraxmaan ayaa kaga mahadceliyay xildhibaanada Jubbaland waxaan rabaa marka hore marti sharafta ee ay ugu horeeyaan baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ee la soo karaameeyey noo soo hiiliyey shaqadoodii oo taalo soo dhigay oo nagala soo qaybgalay doorashadeena aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo sidaas oo kale aan mahad gaar ah iyo ammaan u soo jeedinayaa oday dhaqameedyadii baarlamaanka maanta guddoonkooda doortay xulitaankoodii ku howlanaa muddo dhowr bilood ah soo xulay ku soo adeegay soo kala reebay insha Allah wiilkii ilaahay u xalfayna halkaan keenay 12 bisha Agoosto oo ku beegan maalinta Khamiista soo socota ayaa la filayaa inay ka dhacdo magaalada Kismaayo doorashada madaxweynaha Jubbaland Awil Abshir Yuusuf raadiyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo.